waxaan ku soo koobaya intiina halkan fadhida ilaahay bariyay in dadka ay kala joojiyo intiina halkan fadhida ha ka qayb qaadanina kuwa madaxda waxaan leeyahay war haddaad magac iyo maamuus xataa doonaysid muslim aad disho ku heli mayside dadka dhex galoo kala qabta waa kuwa ugaasiyada waa kuwa salaatiinta waa kuwa siyaasiyiinta waa inta culamadee ka agdhadhow meelaha la isku dilayo war ilaahay ka baqo oo dadka kala celiya oo waxaa ku kala celisaan ilaahay kitaabkiisa wuxuu sheegayo ilaahay kitaabkiisa wuxuu sheegayo ku kala celiya waxaan leeyahay haddii khilaaf yimaado aayaddii hadda laynoo akrinahayay khilaafka intaan gacan aysan gaadhin waxaa ka horeeya in bal markoo hore maslaxad lagu dayo xataa qoladii dowladda ku kacday oo dowladda islaamka ee caadilka ka hor timid ilaahay ma dhihin markaba dagaal ku bilaaba ma dhihin alla wuxuu yidhi tabaaraka watacaala marka hore maslaxad ku daya heshiiskaasi haddii uu markaas socon waayo cidda gardaran la dagaalamo baa la yidhi tabaaraka watacaala sidaas daraaddeed caqligu ha soo noqdo ha laysu tanaasulo dhiigga ha la joojiyo laakiin had iyo goor waxaa calow ah inaan ilaahay u toobo keeno rabbigeenu noqono oo diinteenu ay dhabnaga noqoto فردا وجماعات وأمم الدين أي دبنا نقطة معقول معها الله عليه سنة إن علي هذا الشيء ما به شيء كلام بقى ما به شيء كلام بقى علماء عايشين ويجي تايو يا هي الصومالي أنت أي أديك كبرنا يسوع والدين هذا أصول نقول يسوع دولة في عنها بس هنا ولا لا حد تدعين إذا نقولنا وتاج الورد أو تاج marka inaan ilaahay u noqono rabbigan subxaanahu watacaala u tooba keenno hadalkii in baan sii adkaynaya culimmadu ay celceliyeen oo ah qof alla qofkii wax ka geysan karaa inuu arrintaas hor joogsado waa meeshii ugu weynayd waa kelimadii uu ku jihaadi lahaa fii sabiilillaahi weeye dadka walaaleyna islaynaya hala kala ilaaliyo insha allahu tacaala diintana aan u soo noqonno waxaa khayr halkan ka dhacay culimmadu inoo sheegaysana aynu isku dayno fardan wa jamaacatin inaan ku dhaqanno